السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوم شوية مدن وزير ورفاقية رقمية وعيدلته مسؤولية كله داودياش سترة بدنله دقيقتياش إذا عطوا كفرة يو أضير هريرة هي فديا كقدرياش برنامج كن أبان الذي سودوينية ومالك اللباب شروين هذا سومالي لان وسارة ورفاقية أي سوق مقابسي بهذا الموضوع بس أنا لو قلنا غيره وزير الشيخ عبد الياسين الشيخ علي يعلم يؤتي هوشا لصوغرته وحنا سيبوناga in ay ila fadhiyaan oo barnaamijkan aan idinku soo gudbi doono oo aan idinku xamaali doono rag fara badan oo ay aragtay sida la isku helo laakiin maanta nasiibunaa aynu isla helayno oo aynu isla helay haday siyaasad tahay haday aqoon tahay haday taariikh tahay intaba odayada halkan la fadhiya meel aan u dhaaf ma jirto waxa soo dhaweynayaan dhinacayga bidix بروفيسور حسين بلحن أقوياء سريع وعروض حاجة عافمر يمسكها كنت قصير وحيلان مؤسسة جامعة دوي فرنسيس معلوم وحا بدي كده عن كبلا بدون إن شاء الله سياسي وين محاكور هذا أقوياء اسمه حوي عبد الرحمن دعالي بيلي بنجير الإسلام كيه هو عرفته هو ملها أبلغ خاصنا وأسميه يعرف مش يشرو وأبوان وكذا بعض ما كنا بنعمله مثلا كسوق ليه عبد السلام ياسين جاب حد وحوي مؤسساتي ذاتي وهذه محاكرة بقوله في تلك تجار كسكو سواء بالعربي أقولها السريع ورير سومالي لنا dadka ku dhex jira ee aan isba sheegin doorka iyo taariikhda ay leeyihiin odaya waa la soo looleeyaa dhamaantiinba qodobkeenu wuxuu noqon doonaa soomaalideeda siyaasadda iyo qabyaaladda talo maxaan kala siiyaa siday u kala hari karaan sidee ayaynu dhaqan wanaagsan oo suuban oo usluubkii islaamka leh iyo mid le maamulkii wanaagsanaa ee qabyaaladda ka caagana aynu ugu gudbi karnaa haddii aan in yar idinku horeysiiyo waxaad moodaa innaga dimuqraadiyadeena xisbiyadeena dhismaheedna dowladnimo shaqooyinkeena ugu hooseeya intuba waxay cidhibka saareen hanaan qabyaaladeed oo berigii shirweynihiiba odhana laga soo bilaabayay maxamed xaajiraan cigaala faristo waxaa loola jiray wax ka qaybsi qabiil reer maxaa la siiyey reer maxaa la siiyey isku bilow مسبيل إن كسي ترتيب على كذا أو كذا كارثة يخوص ولا نعم الصومالي خاصة الدلكين حناك قبل يا يتابعها بدرس حاجة غيره هي سياسة ولا عكسين سريع إنه أمة ثانية كهذا يقولها وجود كذا قبيل سياسة هبوطة إنه وقول كذا وزيرك أحمد ياسين شعل الوعلاء وكنتي نوسق وقاعدين شركات وغرفة شرعي يمانطة وعن ويان أرينا أن أبقى هنين إن نسوي خبرنا أرينا لشيء آلي يعني أطابنا سويه شركة لنا وحوى ويتصل بحان وإن هاي الدولة اللي هو قارين دولة هي الفلكة وحصلان الأوكلاء وضياشة وضياء متحلمين وأنا كنكسر جديد ونرى يجيبون مرتضى كلام الشرف كلام والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أخذت اليدا بنعيات بضم بينه أريد أن أقول لنا بنعيات بضم. أنا بنع كأي أو حوي بنع إسمام وكيو self governance كوحوي أخذ كلام. إسمامك يدك بني آدمك وحكي بحي هذا اللي مامور هذا كذا حيوان يسبق وضع لولانا جان بد والله ما يسوي له بد وحده هجا وحده هجانية وحده يسكت حنا وحده كل حيرية هنا لا طيارة النقطة واحدة كل حيرية
wixii kale aan isku daynay way hana qaadi waayeen waxaan ognahay waxa weeye horta qabyaaladdu waa arrimaheena weeyaano waa dadkaan dheernahay oo dadkaba dheernahay weeyaan aftirsato ilaa iyo diinta islaamka markay kamid ah aftirsato waa waxaan dadka dheernahay oo waxanba maahaba yaa litacaarafoodii weeyaan laakiin arrintu waxa weeye sidaynu waxa wanaagsan uga qaadan karna waxa kalena uga tegi karna waxaan tusaaleynayaa idinkoo raalli ah laba qof hadday meel isugu yimaadaan qofka hadduu keligii yahay oona cidnama u baahnayn qabyaaladna u baahna wax kalena u baahna waa sida ninka miyiga joogee magaranaysaa arigiisuna ku noolyahay roobka waraabahana carruurtiisa dadkiisaa ku filan in allayaala cid u baahan yahay markaa ma jirto laakiin hadduu waraabu soo bato ama libaaxu soo bato dabeetana ninkii kale ay jaarka ahaayeen ayay wax kala seexanayaan maxaa say wax iskaga celiya dadku markay soo bataan markaa waxay u baahan yihiin wax kala hagaajiyaan iminka halkan maanta haddii qof dilo isla markaaba reerkii doon baa la odhanaya leanna wax kaba ina hagayaan ina hagaajinayaan jirin manhajkeediiba noqday dasturkeedi qofkii markaa odayaashii baa loo yeedhi odayaashii dabeetana kartiga geli arrinta iyaga haddii wax kala jiraan markaa wax kale hadday jiraan wayna kala hagaajinaya wayna kala hogaaminaya qabyaaladda markaa waxay ku koobnaan lahayd isgarashada keliya ku koobnaan lahayd marka waxaa loo baahan yahay waxa weeye qabyaalad aan la dagaalano lagama dagaalami karo wax bedela waa la yeesha wax dowladnimo ah waa la yeesha dowladdu markay sii daciiftaba nidaamka qabiilku sar u sii qaada hortu sidaa weeye macnuu markaa muxuu yahay waxa weeye dowladdeeda inaan adkaysano qaanuunka iyo shuruucda inaga dhaxaysa inay ina xukumaan ina maamulaan qofkii markuu dembi sameeyaan xabsiga la geliyo cid kale loo yeedin qaanuunka inoo yaala lagu xukumo ardaygu markuu iskuulka ka soo baxo aan oday kaxayn oon qof kala kaxayn intuu beer buurtaa la geeyo imtixaan laga qaado imtixaanka ciddii kusoo baxda la siiyo markaa isticmaalkeeda waxaan kaga kaaftoomi karayna inaan wax kala helo oo waxaa ka sarreeya helo weyaan jaamicadaheena sida lagu gelayaa way noqotaa si karti iyo hognaana waxa weeyaan tabeel baan jiidaya kuma jiidi karne waa inuu waxaa wax bedelo adag samaysanaa oo shuruuca oo lagu kala socdo oo qofku og yahay wuxuu isagu samaystay inuu wax ku heli kartidiisii hognaantiisa wax ku heli inantaa xoojino un bay tahay haddii kale kama bixi karo way beyle aad buu mahadsan doctor burxan baan usoo gudbi doonaa haddii aan idin xasuusiyo burxan dee ma oranayo waa la gaboobin laakiin aqoonta ku duugan iyo cilmiga xambaarsiya isagu waxa weeye dadka qabyaaladda halka soka inagu xididkeeda ka wadwadno wuxuu isagu xusi karaya markii maraykan uu tegay waxbarashada uu u tegey goorta isaga sheegi doonay waxay ahayd waqti rayslaha marka ay galaan la yidhaa waaba ka xunahay kama xeedo dadka madow supermarketada markay galaan daaqada soo istaaga halkan lama ogola baabuurta halkaasay qabyaaladu markaa maraysay yani waa midabka madow uu caynkaasoo kalaha doctor burxan ilaah baa taana ku joojiye maanta ku joojiye waxaan doonaya bal hadda in aynu dadka wax uga sheegno sidaynu uga gudbi karnaa hanaankan qabyaaladda ah ee inabiya digay meel walba soo taagay ee dadkeedii markaa ay ku calamaaleen mutashaatoo dhan uga yeeran madax iyo intii kale joogtada waan salaamayaa sheekadanu runtii waa sheekade googoos waxaynu ku wadnaa hadda runteedii lagu gaari karaa wax yar maaha anu waxaan ka hadlayaa waxoogay saaxiibka cabdisalaam qabyaaladii ku hadlaayo qabiil anu waxaan ka hadlayaa han iyo dami waxay kala yihiin marxaba han iyo dami soomaalidu iyagoo gaajoonaysa oo waxla hayn ayay han dabado han bay doonaysa halkaasna binaadamku kulliga u baahan yahay in hana
قالت هاي هو بس حقيقتوس طريقة كده مركا هو وناكسيه لكن مركا حداف كدكتو وكو كيريا إن الغلاق وصدق إلى ذلك خيال كل وقت وأضم كتك وذا شيء يوم وذا قفص أي كنت ليش أنا بقول يا عنك مركا وذرتي هذا اللي هذا أنا وصاري وعندي راه إذا الجميت وهذا سوى كل هذا وعيني وعيني ما هي مشكلة هاكم مركا مشكلة ليه الدنيا هرمت هسه هرم فعلي وقبله من عامة أو إنه وينان هذا كنتي ولا الذي سي وكنتي سي ينتفع ونخدم لو ريتي وأصل كيس السيريا وهذا يمكن المركز في قرب وقرب أيوه مدرس عجيب وأهله بقى وقفل يستيق أيوه قرب وعتمد البوك وشاينة كذا هلا سيدي دولة وبسرتي كله Chinese ko kuwi dawlad waxay dhistay oo ma qarbiga ma amarka Chinese ka ugu Chinese ku markaa dawladda ay dhisaan waxay ku dhisi jireen han iyo xoog ko boqolaa inayso inta qaadayso kuwa kale inayso xukumayso holaas ay xukumayso laga dhigay qaar kale oo ka caraysan bay inay faawo meel dadka weyn laga weeyay markaa ibn khaldun baa ka hadlaya buugga uu leeyahay weli introduction muqaddama ayaa lagaa waa chapter caama wuxuu yidhi dowladda waartay ee maxaanku yidhaha jirtay waxay noqotay ta aragtay khatarta ay halka keliya uu leeyahay annagaa u sarrayna annagaa wanaysay annaga kuwaasi waa laga dambeeya qaar kalooda annagaa kaa siman oo magana saaxiib ku baabiyo waxaanada ay ku jiro kulleeyna halka lagu baasbaabiinayna inaga isbaabiinayna Soomaaliya alxamdulillah meel wanaagsan bay soo gaartay haddana balee Soomaaliya cid kale oo haysta ma jirto iyaga isbaabiinayna halka qiiska ee macnaha lahayn ay isku baabiinayna inana khatarta gooriyana way ku jirto dantuna waa arrin gaar ah oo maxaanku yidhaha qarbiga iyo intii dowlad dhistaa waxay fahmeen dantu inay muhiim tahay oo kala sarraynta iyo maxaanku yidhaha anaa waxaa adigu waxma tegin inay ka tegeen waxaa jira dadkii fikrad ahaan u dhisay afkaarta magaraysa ay dowladu ku dhisantay qarbiga oo ay ka mid yihiin maxaanku yidhahaa Thomas Jefferson oo xagga Mareykanka ah iyo maxaanku yidhaha kuwii economist-ka ahaa Hobbes isagu wuxuu qabay dowladdu waa ta loo baahan yahay wax kastaba ay lagu dhiibayaan iyadoo hayna ilaaliso nabadnimo imanayse dowladdu inaan wada dhiibayo iyo wax kasta marka rag baa ka daba yimi oo yidhi war dowladda haddaad u dhiibto waa run way kaa ilaalinaysaa cadow dibaddeeda dadka iyaga haddana xukumaysaayoo baabiinaysaa oo dictatorka halkaas ka soo baxa marka in si maxaanku yidhaha loo helo dowlad dhisan oo degan waa inaynu danta fahamnaa oo interestaas dantaas maxay ka dhigan tahay qofka walaalkaa ee citizenka inaad la hadasho aad la tashato aad waxaad doonayso isagana aad u ogolaato markaa wada shaqayn danta laga wada shaqayn dad hooskeen keenaysa markaa haddaba innaga waxaa jirta hankana waa maxay markuu wuxuu yahay waxa weeye anaa isla weyn anaa ugu maxaanku yidhaha ugu sarreeya ugu wanaagsan wacaynkaas badanaana marka hadalkaasoo psychological baan ka hadlaya marka aad maqasho qof sidaa yidhaah ama reer sidaaba ku adkaysta cugdad baa ka hooseysa cugdadaasaa marka ay daboolayaanoo ay leeyihiin haa marka guntana Soomaali anu sidaa qabo halkaa waxaa ku celyahay innagaa walaalaheen gabooye ku turay
marka dadweynaha laga wada baxsanaya Soomaa karo waayo ninka walaalkeena ma dadka walaalaheena haddii xuquuqdoodii inala midka aynu siin lahay qadarin iyo wax qabadsi ayay noqon lahay technology dadka inoo hayay gabayo taagniha ku soo noqdo professor haliga markii qaybada ay bulshadii ee la dulmay haddana intii wax dulmido yaa isii dulmay soo waxa jirta waa taa ku soo ka Chinese dulmay degay wali baa iskunay ilaa markaa fikradda timiyo ibn Khaldun ka hadlayo waxa weeye kooxdii dawladda Afrika dhistay China waxay noqotay waxaan socon maayaan inaba ku waarinayno oo kuwa kale dibadda degnay ay soo galin wax oo dantii iyaguna ka helaan oo iyagu dhow wax qabsigii ku jiraan Soomaa karo laakiin inta ay dadkii ka saareen inuu reebel baa tahay waxaan soo way mid kale ma bismay way dhismo hadalkiisa laba dhisaya masaakiin way oo runtii tegalaha ilaa galabtii shaqeynaa waxay helayaan dhilka iyo tacabka wax yar oo kooban laba arrimood baa laakiin boqorgooye oo mitaar ka qaadanaysa waxoogaa gaayar helaa chaabka way oo caruurtoodii gaajoomayso oo maxaan ku dhahay reerkoodii ama meel weli weyne lahayn ama waxay hurdaan iyo aan lahayn ayaa chaabkii wax qayb weyn qaadanaya midda kale iyana ka dara waxa weeye ninka walaalkii la shaqeeya ayuu carwarkayaayo markay shaayir u baxaan keedkanta ku yaalay wadaadda saa karanaysa ayaa iyagoo mid walba koobkiisa isku afuufayo ayuu oranaya wax kale ma odhana oreeheede wadinka hadda dawladda istaga laga daysan wax ugu haysa مركات تكلم وعلى ما جرت مركا ما أنا يسلا وهو ودكوا أنا هيسين شو تقولوا حتى نيجي أنا أطلع وطن بالنور ما كل والله أدوكوا زين بكاد العالم هاي بيسألوا يعني حالة الوقت أنا وحقبا إلا أنت هاي مستقرين وقدرسك غير هبل وحقك وقبل العبنتها شرعيهان يدينهان يقبلهان هيك هذا الأمور تمركوا ورسها إن الملل بديه إن الحبيبيه إلا السيوه بدك لا عيسى خير بوليه خير ممكن مقدرين أيه أنت كلمة مقدرين أيوه واحد شفت الدولة laga raagay dib loo oranayo maxaan ku oraa annaga wariyo taal inoo goro waxa leeyahay ma geydaan baalay waxa lagu sheegayaa dadkii kale ka dhinto qaata Isa heer lahaa heerkaas waa heer cajiib ah heerka ugu yar ee u taagtaya ayaa waa hore ay go'aansadeen garaadku ka soo baxo inuu garaadku ka soo baxo ugu yar Soomaa sidii baana ku joogtaa heerna way samaysteen ku kale inkastoo magaalo iyo dawlad qarbiya markii la galay heerkii meel la iska dhigay oo maxaan ku lahaa sidii loo markaan oran lahaa dhammaan aragayro qabkan aan isku haynaa ee kala kaxaynaya oo weliba ka filaama psychologically markaan ka hadlo habartii oo aabo laba xaas lahaa afar xaas lahaa oo isconaysa isconaysa ayaa ka mid walba haddaan aabaha anu laga guursanba awoodaabaa guursado noloshu saasay saameynaysa marka arrinkaas in meel lagu tiriyo way Dr. Hussein Buha aad baan ugu mahadcelin maxay wajigay heestii hadaaweye ay qaadiseen shankaroon iyo maxamed goob danta wadajir guud bay xaqiiqo fogata waa sidan aad u dhigtay raadiyo dani waa sheekada waqtiga wajiro danta waa wuxuu khasbay haay professor Aksan Yasin Gibxad wax badan baa u soo joogtay maanta waxay ka hadlaynaa dhaqan qabaliya
iyo ismaamul iyo ishoggaamin waxaynu ku soconnaa waxaa laga yaabaa in masaajidada aynu reer hebel ku gallo oo aynu masaajidkii reer hebel iyo masaajidkii reer beyle iyo masaajidkii reer abiin ay xaalad u noqoto markay ururada iyo xisbiyada iyo reeraha iyo guryaha iyo hudheelada ay soo dhaafto qabyaalada iyo maamulada iskale iyo siyaasadda adiga muxuu see kula muuqda horta waxaan marka ugu horeysaa wasiirka iyo wasaaradda warfaafinta iyo madaxda dhaqanka iyo qoladan iyo miro dhaqanka inoo ilaaliya halabuurka iyo gobolladaba iyo marti sharafka kale ee kasoo qayb gashay shirkan qiimaha badan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa halkan shirweynihii dhaqanka ayaa ku qoran oo halkan guudkeena yaalla wararkaa laba calaamadood buu leeyahay. calaamadu waxa weeyaan waa khariidadii ama maabkii somaliland, ta kalena waxa weeyaan waa barki bani aadamku had iyo jeer sumadan aynu ku dhigano xoolaha ama wixii hanti aynu leenahay ayuu wada leeyahay, waa sumad weeya. waxay u taagantahay midi dhaqanka aynu leenahay dad ahaan ee reer somaliland aynu leenahay waa barki. ka kale maabkuna wuxuu u taagan yahay dhaqanka dowladnimada ayuu u taagan yahay oo waa inkastoo maabka inagu aynaan samaysane laynoo sameeyey waxaa inoo sameeyey dadkii dowladnimada inooga horeeyey ee dowladnimada sameeyey baa maabka inoo sameeyey. markaa maabka laftiisa aynu taaganayno waynu kaga duwannahay dadka kale, xataa hoyga kale afrikaanka waynu kaga duwannahay. waataynu soomaaliyeyn doonanaynu inagoo maabkale dee isku darsanay qoladii soomaaliya haddana kala noqonay maabkeenidaynu la soo noqonay oo halka kale ayuu imika maabka inoogu sawirayahay. waakaynu doonaynaynu xagga dowladnimada inaynu ka hadallo sidii aynu uma ilaalin lahayn horana ugu marin lahayn inagoo dhaqankaynu lahayna laftiisii aynu adeegsanaynana labadiina sida aynu isugu wadayno iyagoo aan isdiidaynin aynu eegno. horeynu u soo maray doctor xuseen cabdullaahi burxan wuxuu sheegay ninka ahaan jiray aqoonyahanka weyn ee naqaduu loo jiray kitaabka uu leeyahay ee la yidhaaho waa almuqadama arbeedka ruline islam introduction. wuxuu kaga hadlayaa sida runtiida waxaa la yidhaha waa cilmiga bulshada, waa kitaabka aasaaska u dhigay intii aan dariji xoog u qaaday. marka hadda iyo jeer wuxuu ka hadlaya sidee ummaduhu hore ugu maraan. waxaan u ahaa nin xagga cilmiga bulshada iyo cilmigii kale ee uu ka soo baxay isagoo yar ee taariikhdii islaamka labadaba adeegsanaya. haddaba haddaynu dib ugu noqono afka ayaa dhaqanka wado oo afafka ayaa sida, waayo haddii afku aanu jirin soomaalidu waxay tidaahaa dadkuna afkuu isku gartaa xooluhuna urtuu isku gartaa. afku haddaanu jirin dhaqanka cidimo xambaartoona ma jirin. marka xataa ereyga dhaqan iyo ereyga afdaqaafka ee carabiga iyo ereyga culture oo af ingiriisiya saddexduba waxay la xidhiiraan dhaqan. intayna keena saddexaad oo dhaqanka usoo noqon labada kale haddaynu eegno afcabeedka hadday ku wado thaqafa asalka ereyga thaqafa waxa weeyaan waa wax waaro weyn ayuu ka soo jeedaa oo weliba mar waaro oo keliye haddana adkaada waaro adkaada. marka dhaqanku sidiisaba raagista iyo adkaanta iyo horumarkoo markaa lagu daro waan halkiisii taagnaan buleey. ereyga af ingiriisiga ee culture wuxuu ka yimid erey laatiina oo cultura colera waxa weeyaan
وبيريس وحلبيري بيريس وحلبيري كي ما قاعد كوا بيريس وحلبيري شايف كي هكذا كهذه هبدي طبعا هسه القاضي وهي عندك كلمة ما يعشنا أول كلمة ما هو أبوي مركا بيريد قولي بيريد هذا اسمه ما هو تقامه أو بيريد ده واحد بيريد كده في ديابه ولا حاجة إنه لكن واحد لبضوا ولا يعني لكن جه حوالي مركا تفتح ورقتي أفضل إلى هذا الشيء ويكفوا ضدها إلى عرضها ده ويبدأ ويقطع ويبدأ قيسا ويبدي ويبدي كيرانسا ويبدأ يكوسو بحيث مركا تبدأ عن سوى مكسن سابقا يكون برطب العنسا مركا بإطار كي يعرس بوحويا لبضا الشيء يقول مهمسا عينو دور إنه دقن كيني عينو قوة دقن إليك مركا من الصومالية لو معلوم لي يوافق هو لبضا موافق لكن يوافق هو حويا وحور دقو أما أهور دقو أما وحدقو أما وحدق شيء تعرف مقولة صحيح عربي لكن هو حويا دقو هو نظيف دق وحادق لبضا حويا لبضا يقيمون لا ومن المنافق كان ليس من روحي كان ليس وحي لا كوريني سيدا طاهرة بيرت اللو كوريني لو مدعينو هذا كتحراعي دلنكين عينوين عينو أصول شفري إيكا عينو إنتاينا دولي أوكين عينو ضلحان أولين واحد أوليان وادقن سيدا تيا وطلع وحان كحلي أبوتين عينو هاكو أبورني سيدا إلهي وسبحانه وتعالى إنه في البيئة إن الوجود قرر يلحق من السيء كدولة لمدنا وحفرية تدخل يسوي مكان أرس أو قرابان أو أخوضيشان أو قبل إسماعيل وما مكتحي عيشان ولو أنه أحيلكم به وراك إلهي سبحانه وتعالى فبما رسولك صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من ربك لنت له ولو كنت فضلا قليلا العرض لفضوا حتى الحول فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. مرة أخرى أين يوصفنا هو شورى الحوية وتلوذات وأنا أقول لك أن عن الديمقراطية هي الكريم أصل كيسكين لكن حوية الدولة التي تدخل بوجهها إنه التلوذات بيننا على التلوذات ayay uleen oo dadkeedu ciditaankeega meelkuma goosato marka sidaa imika aynu halkan isu horfadinaynu shirka u qabsanay Soomaaliya waxay ku maamaadaa arimaa shiraysi lagama daahiyo dadna shir lagama daahiyo shirku waxay leeyahay waa waxyaalaha dadku ay wax ku wada qabsadaan oo shuuradu ka soo baxdo waxlaaba ku maamay shirkan oo labadii loo qabtay qola aad u joogto waxaa aad u jooga qoladii dhaqanka hadday tahay halabuur iyo hadday tahay hoobo qoladaas wuu joogtaa oo waa in badan baahan inkaarkaasi qolan sidii ayaa inkaarka ayagoo magaceeda tilmaamay wuxuu ka wada garanaya laakiin odayaashii kale ay maanta doonayeen in ay arrintooda wadaagaan intoodii badnay ma hayo taasina waxay tusaysaa in waxaynu ka hadlayna qiimaha ay leeyihiin ee dowladnimadu leedahay inagoo labada dhaqanba dhaqanka dowladnimada iyo dhaqankeena aynu leenahay dadnimo midna waa dowladnimo midna waa dadnimo isma diidayaan xaashaa weligeena isbaydiin ingiriis baa inoo yimi inagoo dhaqan dabeedna markaasuu dhaqankeena inoogu yimi wuu inoo daayay inagama digin inagama duugin inagama daboolin sideedii buu inoogu daayay weliba markaasuu odayadeedii la macaamilay haddaan odayadana maanta beri dhaqanka inoo hayay ee sidaa inoogu dhisnaa ee aynu
ay sida looga baafiye qolada Soomaaliya haddaanay jirin wax badan baa ayaynu qolada ka mid ahaan lahay laakiin alxamdulillahi rabbil caalamiin tiyaa looga baahiyey laakiin maxaa dhacay maanta wax badan baa isku bedelay oo dhaqan ka hadlayo waxa furay dhaqan badan baa dhaqankii furay wax badan baa furay waa loo baahan siyaasadii baa dhinac ka soo gashay wixii waxay u baahan yihiin inaynu ka wada hadallo oo sidii aynu u kala saari lahayd waxaan isgelayno wixii isgelayana aynu halkooda ugu dayn lahayd ayay tahay inaynu mar walba ay wasaaradda warfaafintu in loogu hogaamsiyo dhaqanka iyo wacyigelintu inaguna aynu aad iyo aad aynu u baaqbaaqno oo aynu uga hadalno way professor abdisalaam aad baad u mahadsantahay cabdiraxmaan ducaale deyne ceeb baa laga dadka oo dhaqata reer miyiga nahay marka ay saddex nin oo reer miyiga wada shaqaystaan baa waxaa layidhi wax badan markay doodaan ayaa marka dambe waa qofki uu sheegayay burxan ayaa mid kale wuxuu oranaya waa inana sadaynu waqtigeena Soomaaliyeed kale inaga sugaysa yacni qof walba halkiisu isku calama saaran haddii talada wanaagsan ee la raaco oo tusaale ahaan dee laga tegi maayo haddii uu qof hadlo oo yidhaa mataqaanaa habruco jooga yidhaa dee waxa weeye nin reer deglayaho mataqaanaa aqoontiisa ka faa'iidaysan maayo oo cabdisalaam reer raqo oo reer siric la hadli maayo oo ruuxawaan reerkiisa oo dadkina wax u sheegi maayo aynu doonaynaa waxa weeye in laga koraa waa badan xafiisyadii iyo qalankii iyo isla xisaabtankii iyo dowladdii iyo arrimahan xagga reeraha ee dadkii ay wada rumaysan yihiin sidee ku kala duwanayaan bismillahi raxmaani raxiim haddii odayaasha professorska ayaa wax badan taabtay waxay ka hadleen caadooyinkeena iyo sida loo dhaqankeena iyo dowladnimadu sida isku waafaqi karaan ama isku waafaqsan yihiin iyo diinteena islaamka horta su-aasha waxay u baahan tahay in lasii kala qaado anugu xaqan ka imanaya waxa weeye waxna waa dowladnimo waxna waa dhaqan dhaqankii iyo dowladnimada waa iskaaleen dhaqankii dowladnimada dhaqankii wuxuu ku kooban yahay nolosheedii buu ku kooban yahay hore nolosheedii buu ku kooban yahay wax kalaa soo galay dhaqanku qabiilkan buu kala hagaajiyaa iyaga dhexdeedu iyo waxyaalaha yareer kooban ee ka dhexeeya nin walba xoolihiisu leeyahay wax badan oo ka dhexeeya dadkaa ma jireen arsaaqadana allah iyo roobka weeyaan adhigiisaasu iska wata waxaa ka dhexeeya waxaa laba nin hadday islaayaan waxaa loo kala hagaajiya waa yaroo basiida waa wax hoose dowladnima laakiin way ka tacweyn way ka ballaaran tahay waxay isku keenaysaa dad kale oo fara badan ayay wax ka dhexaysiinaysaa iskuullay ka dhexaysiinaysaa shaqay ka dhexaysiinaysaa xafiisyay ka dhexaysiinaysaa adduunyo kale ay la dhaqmaan bay ka dhexaysiinaysaa waxaasoo dhan waxa maamulaya waxa weeye waxaan idhaahno qaanuunkaa wada samaysan ee dowladnimo wada ayaa naga wada dhexeeya marka waxaa loo baahan yahay qabiilku halkiisa iska ahaado caadooyinkunisooda iska ahaadaan laakiin wax walba kama jawaabi karto qaanuunka qabiilka waxba kama jawaabi karto waa inay inagu kaan samaysanay ee wax kala habaynaya haddaad maanta gaari jiido waa in jirtaa qof dowlad ku soo qabanaysa sharci kugu soo qabanaysa oo dabaqaysa yaa waa inay jirtaa waa inaad odaygaa bahaa aanad u baahan caqalkaagii aanad u baahan laakiin waxayna kala xukumayo kale inay jiraan waa iskuul haddaad ka soo baxdo waa inaanad caqalkaagii u baahan shaqo hesho hab kale weyni jiraayo shaqadii aad ku hesho gaaritii ku siinayo kuu balan qaadayo inaad shaqadii helayso kullaanina waxay la tahay dowladii waxay u baahan tahay wax dadka o dhan isku wax qabeel isku xiran dadka o dhan wax isku xiro habeeyo iyaga iyo adduunyada kale isku xiran ayay u baahan markay waxaad arkaysaa oo xaqiiqa ah markay dowladdu sii xoogeysataba arrimaha yareeda hoose qabeelka dhexe way sii sheeqayaan laakiin markay taasi sheeqo waxaa soo baxaya markaa wixii in lagu xaliyo arrin qabiilnimana way kooban tahay ka ballaaran baynu u baahnay constitutionka inaan ixtiraamno ayay u baahan tahay systemka wax kala adeegala hawaajiyo in ixtiraamno ayaynu u baahnay xuseen waxaan adiga ku soo celinayaa xaggii dunida iyo inagu sideedu isula jaanqaadayna waxaynu samaysanaa wax ururo laydhaa dimuqraadiya waxaynu samaysanaa wax xisbiya laydhaa haddana
kama tagana inay diyaar inaga noqdaan dunida aad soo aragtay ee lixdameeyadii aad u dhooftay ee adduunka aad mudana dhex gashay siday u kala saareen nidaamka qabliga iyo nidaamka dimuqrasiga ah ee la isku maamulayay maxaa marka aduu talahaan kuu muuqda ومحسنتي طبعا انت القهوة اللي waxay muujinaysaa dadweyne dhaqanka iyo xukuumadda iyo dowlad dhisida adduunyada kale way soo martay dhibaatooyinka nolosha ay ku jiro maaha wax inagu inoo gaara laakiin waxay kaga bixeen talawadaag iyo sharci sidaa uu sheegaya cabdiraxmaan dr cabdiraxmaan uu sheegaya waa inu sharci jiraa muxuu ku imanaya xoog iyo qasab kuma imanayo waxa weye dan la isla fahmay oo waxay ku badbaadayaan noloshaydina ku badbaadaysaa marka adiguna noloshaada badbaadiyo xoolaha oo markaa la isu yimaado laakiin haddii ay noqoto anuun baa tayda ilaashano adiga taada baabiinaya waxba wax soconaya ma jiraan marka arrinka qabyaaladii iyo isgaleen wixii dowlad ahaa dowladda naga dhexaysaa way yaraanaysaa marka reeraha isku jiraan adduunyada kale haddaba waxan way soo maray laakiin sidaa aan sheegay Chinese-ka ka bilowdo iyo intii ka dambeysay waxay u sii dorkeen dana taasina dantu waxay ka imanaysaa heer kala wadaag ku yimi iyo in intii xukuumad loo dhiibaa aan weligeed haysanne muddo koobanoo dabar yeelataa 4 sano hadday noqoto 5 sano hadday noqoto soo maadga halkeena inkastoo Somaliland ay dagaashay haddana walba waxay nagu ku jiraa inaynu ku siqno wixii yaraan hagaagsaneen ku baabaan ilaahay haddii hadda waa wanaagsan waxaan oran lahaa asalkaba horta isdhegaysiga baarlamanka baarlamandada doonato feersa dhacay ka waran doonaysa caqliga ku wadaan oo feersa dhacaya oo isdhaawacaya oo weliba adduunyadii hore TV waxaa ahayd wax iska qarsoon oo kutubaa la maqli jiray oo halkaa ka daawanayso hebel wayo garaacaya waa baarlamankii tala bixin weli maynaan gaarin feerkii maskaxda iyo caqli ay nawadiga ahaa marka mid kalena way jirtaayo dictatorshipka shacabka iyo waxay ku yihiin ku yimaadaan gunta markaa waayo Soomaalida waxay doonaysaa hadday doonaysaa cadaalad ma doonayso in wax u dhashaan oo anagu kama naan muuqan dowladdan hebel baa inaad noo dhigto hebelkaas muxuu qabanaya waxalaale wuxuu qaban karaa ma jiro waa ka muuqanaa oo fikradda waxaa jirta ama moodo ama ka maqno waxa weye iska dhimadee society community waxaas wayna baabiinayaan kulley sharcigana in loo noqdo sharcigii weli maynaan garin sharciga maalinta aad gaadho waxaad garanaysa nin mas-uuliyad loo dhiibay ama madaxweyne ha ahaado ama wasiir ha ahaado intuu dambi galay hore dad warsaday la og yahay maxkamad la keeno oo dambi lagu qaado maalintaasaa ay tihi democracy gala mid madaxay noo noqday inta aynu jiray oo maxkamadda keeni jira mid la baarin jira mid looyay waxaasoo qabtay shuuday halkaa beerihiisi waxaasi waynu wada ognahay hoostaa laga wada hadlaya laakiin mid inta la qabtay badda la soo dhigay la yidhi baaritaan cadaalada ha la mariyo kadibna wuxuu dadka ka lunsaday lagu xukumo soomaaliya lala yidhaheen maalintaa kaasi dhacdaa inagu tallaabo ka hadlay wax ku ilaashan midda kale waxa weeye
inta aynu leenahay aan ka muuqana dawladda timi هاي adigu haddaanu reeheelnahay ee ka muuqda muxuukaas muuqashadaas ku taray وحكوتر ya واي ninbuu yaa digitaalka واي daaro ka dhistay daaraad wax ku bashaa هو waxaa laale wax ku yeelaa ma jiro سلا سلا markaa waxyaabaha ay dawladda inagu ku dheeli ku wareerinayna waxa weeye هاي madaxweynaha gobolya ayaa waxaa lagu qasbaya Hey. haddaanu reeheelnahay ما waa ka muuqanaa meesha واي soo ka muuqanaysaa weli miyadan xisaabo inuu nin xalaal oo qoraya واي لا يسوي لي شو واحد والله رضي ها وركا صخير والله هي واحد زي حط خبري هو كان انت فريق ايه بلا واحد كذا رقم يقول هنا قيل اللي دعيش واي قيل اللي دعيش مركز الصوره هيك كان صوره دور كون من صوره واي دور صوره واي صوره دور كاسا مقرر لو ايدين غير كون واي ودوابو dhimanaysaa midda la garanayno wax soo dhacay هاي ayaa reerkaa dad ka mid tahay واي magaalada maanta aynu joogno gaariga halkaa ku jiiday dareen واي warka yaa jiiday reehiga baa jiiday baa looga واي reehiga baa jiiday هاشم reehiga la jiiday baa looga weli miyihiina igu jiray hade inta ay waxaas socdo marka dawladda maanta dhisan baa lagu bilaabay intii lala sheegay sifadgarayga cadaaladana ha laga dalbado ha laga hagaajiyo ama ka muuqanada ha laga tago walaalkaana markhaati ku fur maftana la bixi kiisu baraagaasuha maca qarib marka ku fur وحول سيد شرعي siduu ahaa xeerku ahaa laakiin walaalkaa ka bixi oo xalaal ka bixi oo dadka kala furo adeer waxyaabahaas dhaqankani way inoogu jirtaa afkaarta dunyaduna inaynu ka faa'iidayso weyn marka dabarkaasina waa inuu jiraa faaradan caqli ku socdaa oo aan iibsi ku jirin imisuba guryaha ay lahaayeen xoolaha ay lahaayeen intay reerkii ka iibiyeen familigii cidlo kusoo dhaco reerkiiba isu imanaya waxa la odhanayaa doorashaha soo socota aynu isu nimaadno aynu kaabeen galno lama odhanayo yaynu u godaa yaa xaqeeda yaynu badda soo dhigi karaa ee sharafteena iyo magaceena iyo cadaaladdeena u qabanayo waxaweye yaa waxay noo boobi karaa دكتور فرحنا دور مصر دولة كدوان عبسنا يسجل واحد يوحنا ويديني الكدوان بدو كنتم صندوق لقيتشوه أيات إذنكو بليرة أو عصاصتين أو أول صميسين أو تلاحظ بالغفرون إذا أخذ بكتير كار اللي عندنا محلهم عبسنا ما كنتم خاسرين دولو حل كهين tahay oo waa wixii adoon bay magaalooyin baa jirta sidee kula muuqda waa su'aal weyn weeyaan horta guud ahaan waxaa kalimaad ku faraxsan tahay hayo waa ku faraxsan sababtoo ah waxaan u dagaalamay waxay ahaayeen dagaalamay marka ugu horeyso waa gobonnimo waa layna tugay gobonnimadana ilaahay subxaana watacaala waxa ugu qaalisana ودك سي وده كلمة التوحيد قالوا أيام يكون مجلسة لا إله إلا الله محمد رسول الله بكى اتكرروا أي إله إلا إياه أدورنا هاي وعرض معينة إن أدورنا هي مجلسة كيف إنه أيام أي كيان بينه نبي ما أقول ولا مهنا حرية مركز السيرة حرية البصير حرية مركز ما عمود مطلقات كثيرين وحويا وحيلادا إن طوابط الشرع الأولى حدانا تقول مركز وعطسني كي ورنبا والله مكسا وينو فلكي حريني وين تجيني وين كعاكفني إنني لا استيني إنني لا أتنا كعاكفني إنني لا أتنا إسلام رفضني إنني لا أتنا وحيد من يردقني إذا إنني نوم وحويا حبيب هذه سرعة الدول markaasay nabadgelye
نبدأ إسلام هو السلام وإسلام للإيمان نبدأ وحولنا لبنى الإسلامي نبدأ الآن نبدأ ونفق يحفظ ما كسكوا حتى نبدأ هايين إنك سومالي لان نبدأ يكون فقيدو مرة نسوى قيام الله يعطو إلى إكرام أسعاره الدنيا إلى أطريق حق وشي ستة نبقى راسي ما يتعلق أفريقيا كيف لا يرجعك ما يكون دوني وأنا كلامه يا جماعة الله كلامه هاي كسرة ما كلامه كذب هي أن يروح هو يكسر وإن محاول نفرع يوم كان يعتقد وإن أنا أبغى إني دلوقتي كنت معه وهذا هو المهم بينما بين الحب الاسمي بينما متوحد بشرعي يشترك دكتور حسين شيري وحيد معه تعسير هو بني آدم كنا فكرتي شكوكته الله سبحانه وتعالى بشرع من الشرع لكل جعلنا لكم شرعة ومنهاجا ولا يقولون تبقى وجها وفطرة الله التي فطر الناس عليها ويبقى الهادي إذا تدخل صلاستان إلى هذا الشرع يسوي يجب الشرع منهاج ومثل يقتل كما يدوق الوقت مرة وحا إنك إنك مشكلتك يقولون السلام وهتين هاي صفات ويكون ليس من النظر حريتي ويكون ليس من النظر ويكون ليس من أجلي ويوحى أينه عاد بما هاي صفات ويكون أفضل وأتكي سنوات ويكون وأضيع ما تنظر وشيء يرسمح لك ويكون يغضب ويبقى لما تنسى النظر لما تنسى النظر نحن كلنا تركيب حاجة هنا يسبتني إلا شيء ده يسبتني بالتالي كلنا اللي يسبتني سو شو ما هذا الصغير شو سبتي كلنا يسبتني شوي لكن مركي يمكن يجون عيان لو يخليه يوقعه تنقل المقاومة يا تنقل سنة زرت تنقل سنة هنا وحيوية دستور كأساسا دستور كالقرارات كلها تمشي إلى المساعدين دستور كله واحد يقول إنه هو يبدأ كلام بقنية قبيلته هي اللي يسد حسب القرآن صدقه حتى واحد اللي يقف بالحضانة الحق لا سواء بالحضانة هجوك سواء بالحضانة يوصل معاي يسد هذه إسكت قبيل من البقايا قف بالحضانة qof baa iska yeeshay oo yidhi aniga oo 20 sano iska haystay marka waxa weeyaan haddaynu kaa bedelno oo aynu ogolaano inaynu kala duulano waxa la wax haba yaraatee qabiilkii xisbi ma samaysan karo qabiilku waa Soomaaliya waa wuxuu macnihiisu waxa weeyaan waa in dad badan isugu yimaado hataa dad badan aan aqoonsan ليه قال يسوي حتى تقول وقاليسو فلذي قال يسوي مركا حتى شرعيا دبعته إنك هايسته هي قول البورتيدا وقت الكيا البورتيدا سواء يسويين إنما حتى تعالى وحوالي يكون يسوي حوالي والبورتيدا هو قول الفضيان بورتيدا اللي بكمل شو فضيان هذه كلمة يسمعها وطبعا وقت بسال الله طريق سوق دبعته يروح يعني تنتظر بيتك دل يهم بيك دل تهزأ كفر طعام خطبت لي وانا كيف بين هاي ستة دل تخاف كعبة لها حياتي كذا هذا الدكتور تدعو عنه وكل شقي يا بين القوى هاي شقي وين أبيك أنت هذا الشقيات هو عن كورونا بروما ولا هذا كورونا تاجي من كايداري ما كان يقول حولي والله كورونا يحصل إسواس على حولي والكورونا اللي بعده ولا شيء يستحق يدوي كمان بمين والكبرى والكبرى كان لماذا كسر سوي دول لماذا
ayaa ka sii weyn oo dowladada ilaahay mulku ku sheegay ereyga dowlad qur-aanka kuma jiro waayo laakiin ereyga mulku baa ku jiro ilaahay markuu mulku sheegayna wuxuu allahuma maalika almulk isagaa iskale tu'tii mulka man tashaa kiyaa inta qofku doonaa watudillu man tashaa watudillu man tashaa ilaahay baa iskale cidda uu ka dhigayo dowlad waayo laakiin maxaa la doonaya waxaa la doonaya inaad asbaabtii la timaado ta iska imanayso sidaada inaad u noqoto dowlad inaad u noqoto asbaabtii wanaagsanayd ee ahayd qaanuunkii inaad ku dhaqanto qaanuunkii inaad gudisho qaanuunku wuxuu baahanyay inuu isbedelo waayo zamanku isbedelaya wajadi buu baahanyay marka waa inaynu dhaqankeena nafteeda xataa wuxuu baahanyay horumarin imika wadankiisa dhalinyarada halka ka zeelicigii asalkiisii weye laakiin way kordhiyeen waxbay ku kordhiyeen waa in sida ay dhaqankooda ku kordhaa inagoo asalkana ilaalinaya geed waa mar labaad beerihii geedkii baa dul u noqonaya oo ka asalkaa weeye beerku haddaanad ilaalinayn aanad baaqaaqayn aanad ka shaqaynayn beeriga mudo wanaagsan ka guursanaysa aad iyo aad asaynu usoo afbeeri doonaa qaybta dadka weligii waxaynu u sheegay xabsan maxaad wacta haddii waxaan ku dalayaa waxaa jirta baaladan iyo kadib waxaa jira aduu waxaa soo diyaariyey waxoogaa ayaa qabiilka iyo qaranka ku saabsan iyo sida laysu waafaqsanayo haddii waqti loo helo markaa way hadasa nala soconaya aynu sheegaya qaybtan ahayd sidee aynu qabiilka iyo dadkii guud iyo siyaasadii isku waafaqsan kartaa halkan ayaan kusoo afbeynaya waxaa ka qayb galay profesoro fara badan profesor xuseen buuxan profesor cabdiraxmaan ducaale beyri iyo profesor cabdisaaya sange waxaga aad iyo aad baan odayaal ku mahad celinaya waxaana barnaamijkan qaybka ah shirka guud ee dhaqanka somaliland ee wasaaradda warfaafinta soo diyaarisa waa gaarsiin aad lagu mahad celinaya waxaan baas ku xirtay maxaa waaye xataa hadduu furan yahay abka dahabalaas waa ammaan hadda la soo deg abka dahabalaas ku xafida hantidaada oo ka warwarnaaw